maantana maxaan idiin wadaa ma maqli jirtay oraahda caanbaxday ee iskaabulow iridaa ku ooy iskaabulow iridaa ku ooy oo la dhaho xilliyada arooska la gelbinayo laakiinse maanta haddaad iskaabulo tahay faa'iido badan ayaad ku jirtaa ila soco channelkana subscribe sa inaad iskaabulo tahay micnaheedu maaha inaad cidlo tahay sida ay dad badan aaminsan yihiin waa hubaal in waalidka qaraabada iyo saaxiibada ay marar badan ku weydiin doonaan su'aalaha ku saabsan sababta aad u guursan la'dahay iyo wakhtiga aad reer samaysanayso laakiin rag iyo dumarka muddada dheer iskaabulada ahaa waxay aaminsan yihiin inay jiraan sababo ay ku fiican tahay noloshaas iskaabulnimada ah waa isku mid haddii aad horay u guursatay oo uu furiin dhacay iyo haddii aadan weligaa guursan haddaba dadkaasi waxay sheegeen in iskaabulnimada ay ku fiican tahay 6 arrimood ee soo socda 1 xeerarka adiga ayay kuu gaar yihiin ma xasuusataa markii aad carruurta ahayd ee aad ku fakeri jirtay inaad durba weynaato si aad u noqoto qof xor u ah wax walba marka aad ka baxdo ciyaalnimada lagaama celinayo waxyaabihii yaraantaa kaa hortaagnayd sida inaad safarto guriga ka maqnaato waxaa la mid ah marka aad iskaabulo tahay xeer kastaa oo aad ku dhaqmaysid waa mid aad gacantaada ku samaysatay mana jiro qof nolosha kula wadaago oo kula xisaabtamaya waxaa kuu fiican oo keliya inaad taxaddar samayso 2 ciriiri la'aan guriga aad degan tahay waa keligaa mana jiro qof kula isticmaalaya fadhiga ama sariirta ama xitaa jikada sidoo kale musqusha keligaa ayaa iska leh oo wakhti kastaa ayaad qubays ku daahi kartaa iyadoo aysan jirin cid ku dadejinaysa dadka qaar waxay jecel yihiin firaaqadaas si ay ugu istareexaan 3 nashqadda dooqaaga haddii aysan jirin cid kula deggan gurigaaga waxaad xor u tahay inaad nashqadiisa ka dhigato sida dooqaaga ah sababtoo ah ma jiro fikir kale oo kugu haysta xitaa rinjiga waxaad ka dhiganaysaa midabka aad jeceshahay 4 hagaajinta waxa hallaysan hal qof meel uu ku nool yahay wax badan kama halaabayaan wakhtina kuma baxaayo sida ay labada qof midba kan kale waxa uu halleeyey u hagaajiyaan wax kasta oo aad meel dhigato waxaad ugu imaanaysaa sidoodii maadaama uu guriga kuu xirnaa inta aad maqnayd oo dhan 5 rimuudka waa kugu keligaa mid ka mida waxyaabaha ugu badan ee la isku dhibsado marka guriga la joogo waa rimuudka lagu hago dhalada telefishinka waxaa laga yaabaa in gabadha ay sugayso filim taxane ah isla wakhtigaa uu wiilka sugayo ciyaaro laakiin haddii aad iskaabulo tahay waxa aad danaynayso ayaad daawanaysaa mana jirto cid kugu haysata 6 lacagta oo baaqata waan ogahay in marka ay nin iyo xaaskiisa isla nool yihiin uu badanayo qarashka ku baxa balse hal qof keligiisa ay u baaqanayso lacagtaas inteeda badan mararka qaar xitaa waxaa laga yaabaa inaad la soo cuntayso saaxiibo kale qarashka ku baxa dharka iyo adeegyada kale ayaa xitaa kuu baaqanaya ugu dambayn qormadan ujeeddadeedu ma aha inaan dadka ku dhiirigelinayo iskaabulnimo balse waxaan kuu cabbirayay sida ay dadka qaar ugu eegaan dhinaca aad badanaa laga eegin fadlan hay laga ilaabin subscribe iyo like adigoo la socon kara